وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني كوقبان كرايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني كوقبان كرايا ووطني marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaynu ku dhex jirnaa soo dhaweyntii gudoomiyaha xisbiga wadani oo aynu imika airport ka soo dhaqaaqnay halkan waxaa jooga dadkii xisbiga wadani mas-uuliyiintiisii xubnihiisii iyo odayadiisiiba halkan bay ku sugan yihiin waxa kula jooga garabka haweenka xisbiga wadani dhammaan dadkan waa dadkii xisbiga wadani ahaa xubnihiisa iyagoo wada mahadsan dhammaantood oo soo dhaweynaya gudoomiyaha ku soo dhaweynaya kuna faraxsan waxaynu halkan haddii ilaahay ka dhigo kelmado kooban ka soo jeedin doonaa oo soo dhaweyna dad ka mid ah howlwadeenada xisbiga wadani haddii ilaahay ka dhigo intii somaliland ay doorashada ka dhacday oo markii koowaad ee gudoomiyaha xisbigu booqashaalka ku yimaado runtii shucuurta iyo dareenka taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee caawa halka ku sugan oo ay runtii farxad u tahay aawadeed ayaa sababaya in kelmadaha soo dhaweynta dadka la siiyo ay hadlaan markaa iminkana xubnaha iyadu yeeri doonaa kusoo dhaweeyo gudoomiye cabdalla salaaman dafle oo ka mid a odayada xisbiga oo runtii oran doona kelmada soo dhaweynta ee xisbiga gudoomiyihiisa oo caawa ka muujin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الرعسده كلمده إذا وحرت سود وين يا قدوميه غريغاغي كسودو dadkaaga ku soo dhawow ehelkaaga ku soo dhawow gacanyarahaaga ku soo dhawow dalkan waxay kaa sugayeen horta intaasaa lagu saadaalinayay madax meel ka saro oo salaaxa ma jirto adigun baa lagu dhowrayay dee wixii ka dhacayna dalkii waxa weeyaan waxaynu lenahay laa baas laakiin hadda iyo dan waxaynu joognaa inaynu waddadii caddeed cagta saarno adiguna waxaan kaaga fadhinaa inaad nagu hogaamisid waddadii caddeed oo cagta noo saartid intaa iyo in ka badanayna waa heegan meel kasta heegan baan nahay waxaanu doonaynaa insha allah biidnillahi kariim ilaahay marka dambe inuu inagu qadinine ee guushaa gacanta inoo soo geliyo dalka iyo dadkaana aynu badbaadino meesha uu maraya waynu arkaynaa xaaladdaa wax dambe aan ugu noqonayaa ma jirto ee waxaan leenahay ilaahow khaatimada khayr noogu khatimano nagu garabgal guushana iyo dee waxaan qalbigeenu ku qabanayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله سلام كنت وحنا كنا عمر الشيخ حسبي UK هذه المسيح هاي عم كسر دوية سياسة بركة تقيل ويسوون كم من السياسيين حسبي وطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. runtii sidii de ay noogu dhacday maxaan ku raday boobkii iyo wixii iyo guuldaradii waanu guulaysanay laakiin dee wixii dhacay uu dhacay ilaahay wuxuu qadaray inaan caawa isu nimaadno gudoomiye soo dhawow waanu wada joognaa kulle waa la tashan doonaa xisbiguna sidii hore iyo si ka dardar badan ayuu diyaargaroobi doonaa soomaalida waxay tiraa mari dage alla hadaba markaa wixii dhacay uu dhacay laakiin wixii dambe sidaan ugu tabaabshaysan lahayn xisbiga dib loogu soo maxaan ku raday energy cusub iyo dardartii hore ka badan kullay ummaddu diyaar ugu tahay reer UK-na waa halkii xisbiga maaragtay asaaskiisa ugu adag uu ku taagnaa ummadduna waa wada diyaar adu baa lagu sugayay soo dhawow intaasaan hadda usoo dhaweynaya waana wada joognaa haddii ilaahay oday xasan axmed haaruun oo ilaa Bristol uga yimi isaguna soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha xisbiga wadani madaxweynaha mustaqbalka
عبد الرحمن محمد عبد الله وحنقول كسر دواو يوكي كسر دواو حسبي وطني يتاجرياشيسي يمدحديسي وضياشيسي يلاميسي ودم كسر دواو قلب فرانيو لا فرنا ونكسر دويننا هم ديارنا حسبينا نجارسينو هل كي هرم مالك سرّيس إن شاء الله بالله الكريم هذه النوم سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت سيو شيف عبد الحسن حاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم عربية على طرف الباب كلها الاسكراء اللي قاعدين نسكن الصبح هاي. وطبعا قرأوا حسنا يدلونيها اسمه عبد الرحمن محمد عبد الله. أنا هو كثير من يا قوميا شلوي من تقيسناي وعن قوائل المسلمين. إنه كل دول مخوف عننا هاي بس هي نكان قدامنا هي نحن النبو هنا هاي قول ويلو يرسو تروح كم تدوشة سامبل النبو حسبية أو حسوا عرضنا بنبدأ كلمية والله تنسى البدود سوت شري meel wanaagsan baynu dhignay goolka birtaynu ku garaacnay kubadda waxa kaloo soo baxday waxyaabaha ay isku sheegnay program oo yara baxeen taan si fiican baa looga gudbo wadankii oo dagaalo ka dhicin dhibina ka dhicin ayuu gudoomiyuhu meel wanaagsan soo fadhiisiyay diyaaradda waayo dagaalada waa layna dhacay oo waa layna boobay ama ma ogolin oo kuma ganacsanayn markaa wadankeenu maanta sida mid weyn yahay ma ahaadeen بدورشات دمبي يبرد المكان وين نقلنا جدا كده القدر وقدره مركها وحن قوى معنا الدنياها سنة ونكسنوا يلاقي يكل الياشي سب يعيد لي شقين يسيبه وحيد دمنا وين كفى يسند ولا وحيابه الفع بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. كنت حلو ذاك يا ولد الشيخ هذا القوة القومن يقول ماذا يقول إنه وين يسولوا ويدنياها وسيد ورشنا ولا عظيم يقول إنه يمين يبغى نحن كنا نفتوله على وقت الكسورين ممكن يزيد يا خويا حسبك خضر حلوان كعان كحلوان الرحمن حروب ينتبه ولا مكا كتب يسولوا بحي ورانا إن شاء الله تعالى والسوريا العاو حياتي إنها سولوا من المساء وأنا الحمد لله إنما كنت هلكن يضلك السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وهرين السلام يا مرتبط رافع السعودي وهريو دومية حسب معارض الوطني ودومية عبد الرحمن محمد عبد الله حوغية جودة حسب المنخدر الدباقة جودة الفلوسة ولا حد بحر ينمرنا مدحنا قارات اليوروبية يوكيما وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونهانتي شرف هي النقطة عندنا هاي مسؤولية قارات اليوروب قارها يوكي وما خلوني معدو كنت لانه هجامين اليوم بدومية حسبه كنت وحنا نبدو يكسروا قارات اليوروب قارها وضع يوكي قعمة فرق كسروا waxaan uga xambalyeynaa runtii sida laga wada dhawaajiyay iyada oo gudoomiye markii ugu horreysay loo yimi ay tahay intii laga soo noqday doorashadii madoobeeda guddiga ahayd go-aankii qadhaadhaa uu qaatay isaga iyo dhammaan xubnaha guddiga fulinta xisbiga waxaanu leenahay dadka iyo dalkaba ay ku sugeen annaguna waan uga mahad celinaynaa runtii waxaan leenahay gudoomiye shacabkaagii cadaalad darro weyn bay tirsanayaan isbedel doonkii shacabku wali waa kuu diyaar waxay diyaar u yihiin inaad dalka talada dalka hanato anaguna warwari mayno wardheer aanu wadanaa marka waxaan leeyahay insha allah biidni illaahi tacaala haddaanu nahay madaxdii qaaradda yurub waxaanu diyaar u nahay inaanu hawsheedii halkii kasii wadno madaxda iyadana aanu markasta usoo dhaweyno sidii caadada noo ahayd xisbiga iyagana naf iyo maal baanu la garab istaagno iyo guud ahaan dalkayaga jamhuuriyadda somaliland oonu markasta gurigahooda ula taaganahay shacabkeeda isbedelka doonaya iyo inta cadaalad darrada tirsanaysaba waxaa leeyahay gudoomiye welcome to London welcome to UK iyo xoogayaba insha allah wixii warara iyo wada shaqayna
waanu wada joognaa saxnaad ugu faraxsanahay inay naga joogaan madaxdu inaan wax badan ka faa'iideyn doono anoo ku hadlaya afkii garabka haweenka qaaradda Yurub waxaan leeyahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan kaaga mahadcelinaynaa safarkii ugu horeeyay maadaama UK ku timid waxaan leeyahay jazakallah khayr gudoomiye wada shaqayn wanaagsan dhammaan dadka ka soo ajiibay ee halkan isugu yimid waan u mahadcelinayaa ugu horeeyo gudoomiyaha UK Maxamed Cali iyo guddigiisa la shaqaynaysa ee xafladan iyo casho sharaftan noo soo agaasimay waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin jazakallah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز رئيس سوريا مديرية حسب الوطني الرحمن محمد عبد الله جامعة حرام سوريا ينيت صن. مرحلة رئيس سوريا مديرية الجود حسب الوطني خلاص. ويصير كل أعمال عاود هاي الرسول. وعن كلاوجا ما هذا اللي هنا يجود اليوك حسب الشرط لا يتعرف اليوم. sida sharafta leh qiimaha ay soo dhaweeyay dunida iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga waddanka ee ka yimid laamaha dawladda iyo la dhamba aad iyo aad u mahadsanyihiin kulli waa soo dhaweynuun waanay daalayay waftigu wixiina soo maray wayna soo mareen waxyaaba badan baa jiray kulli xilligii doorashada qaladaad badan oo dee wishka doorashooyinka ka dhacay waa jira dad badan oo inaga inagu dhex jiro oo naqaano inagu inagu dhex jiro waxyaaba badan waynu ka baranaa wixii soo dhacay labada xisbi qaran go-aankay qaateen maalintii in lagu adkaysto waayo rushka doorashooyinku maaha kuwa maanta dee dhaxa wax badanna waynu ku ognahay waxyaabaha ay qabanaya ay samaynayaan ta kale waddankii waxaad moodaa inuu sidii hore ka darayba oo maanta maalintii siinaaya haystay maanta halku marayo dee laba isla ma aha waddankii waxaad moodaa inuu xaggii gaalada usii socdo oo waxaad arkaysaa xeerkan la ansixiyey ee xeerka maaragtay magacadee kufsi may oranaya wuxuu ahaa dee wadaadadii waxay dhaheen waa xeerkii sinadii baa la ansixiyey oo dee waxyaabaha sideed toban jir baa wixii ka hooseeya way saraysan karaan wayaan wixii ka weynaa hadday sogolyi way samaysan karaan marka waxyaabo badan baa waddanka dhib badan baa iyo maaragtay inaynuguba dhacdo maaragtay caadada ilaahay baaba dee aynu ka maqanayno marka suurdoomi mar labaad mar saddexaad kusoo dhaweynayna waxaynu u baahan nahay taageerayaasha xisbiga waddani meelay joogaan baqaaradda Yurub ama UK ha noqotee mucaaradadii aad ogeed mid ka sii weyn baa joogta taalayna halkan jumhuurka xisbiga waddanina intii uu ka sii batay waxaynu u baahan nahay un inaynu dadkeenni urursanno hagaajsanno hawlaheennina dib u bilaabano waanu salaamaya dhammaantiin waan salaamayaa dhammaan bahweynta xisbiga waddani gaar ahaan inta soo ajiibtay soo dhaweynta madaxweynaheena meesheena madaxweynahe soo dhaweyntiisa waxaa leeyahay marka koowaad cabdi raxmaan ku soo dhawow dhulkee oona muddo badan ma ka maqnayn mar dhaweydaa soo martay waxay shacabka xisbiga taageeraa u diyaar yihiin sidaa xuseen aada sheegay inay dhagahooda maqlaan kimisikii meesha wuu ka baxay waxa weeye sida qodobka haddii dhagahooda maqli waayaan raja xumo weyn bay qabaan qodob labaad bay u baahan yihiin inay dhagahooda maqlaan oo shigayaan dhammaan taageerayaasha xisbiga in sida aada sheegtay adigu waxaa tiri 200 oo goor baanu hadalay intii doorashada ka dambeysay halkaa waxaanu ka rabnaa anigu 2,000 oo goor 200 goor marka waxa weeye inkasta oo ay kharash ku baxayo oo hawl badan maalinta la hadlayo dad fara badan loo yeero kharash badan ku baxo oo laga yaabaa nana kharashka inana diyaar buu ahay haddana waxaan u baahanahay in la hadlo sidii laysu waafajin lahaana madaxdaa laga rabaa ogolaanshiya la-aanta kharashka iyaga iyo hadalka marka
وحلي هاي مركوبات يبربات ومسحات السؤال ولا دمانتين ولا حسكا إن شاء الله عندها يجي ويدنا خير يجي يجنا ويكفر حدورا ورا كوشي يسار ورا ما تجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجدوبية حبنا حسبك تاجريات حسبك اللي بعملها كلها برلمان كأي لمان تاجريات السوي متقابل عوا كذا قاعد يسولوينته الجدوبية عبد الرحمن عبد الله إبراهيم إنه صار وغري وقال اليوكي وطن الإنجليزكا وحان كوسو دوينا قلب الفرن هي نيت صافية وحان شكل كتير كتير أي على دورشدو أمريكا وجوه الرئيسية تمارين وطن الإنجليزكا وطن الإنجليزكا وحويا لاشة فرطة يوروب لاشة فرطويا فريه marka laga yimaado wadanka gudihiisa meesha labaad ee aynu eeganayna waa halkan waxaan cadeynaynaa anoo ku hadlaya afka qaaradda Yurub in xisbiga kula ee maanta ka jira Yurub uu yahay xisbiga wadani uu guuleystay baa ku kala tagay oo ku kala dareeray markii ay ka fahmi waa ay ka garan waayeen saluugeen waxaan xisbiga ay doorteen labaantu sidii wax u maamulay intaas meel maanta isugu iman kartay xisbiga isugu iman kartay waxaa ka jira xisbiga wadani waxaan diyaar u nahay haddaan nahay qaaradda Yurub mucaaradnimadii ugu wanaagsaneyd ayaanu diyaar u nahay waxaanu taageeraynaa ajenda kasta iyo qorshe kasta oo xisbigu ka fuliyo gudaha waxaan soo dhaweynaynaa oo aad u taageeraynaa fikirka uu la yimid xogayaheena dhalinyarada ahi uu la yimid oo xisbiga in qofkii wax gashta uu noqdo qofka berrita xisaabtiisa iyo waxa kulaashiisa iyo codkiisa laga maqlo waxaan kala soo dhaweynaynaa fikirkiisa in la ogaado taageerayaasha xisbiga ee uu ka bilaabay gudaha oo la diiwaan geliyo ruuxan xubnaha iyo taageerayaashaba si loo ogaado xisbiga uu ku xisaabtamo xuduudiisa dhabta ah waanu soo dhaweynaynaa kaamil lamid ah ayaanu doonaynaa inaanu ka samayno qaaradda Yurub guud ahaan oo aanu ka bilowno mid lamid ah waxaan leenahay doorashadii si kastoo ay u dhacday waynu tanaasulay wadankii madaxweynuhu leeyahay waa la salugsan yahay madaxweynuhu qaabka uu maanta wax u wado guud ahaan waxaan u cadaynaynaa ruux ahaan cadaynaynaa haddii aanu nahay xisbiga wadani ee Yurub inaanan marna diyaar u ahayn inaanu gallo doorasho ay hogaaminayaan golaha komishanka doorashooyinka ee maanta jira laba qorshe awgood midna ku yeeli mayno qorshaha koowaad oo ah in nimankaasi ay yihiin niman aan ku cadaatay musuqmaasuq iyo isdabamarin badan oo loo soo bandhigay saxaafadda iyo meel walba xisbigana maanta waxay istaahilaan inteeda la siiyaa waa runtii biladay isaga ka istaahilaan sababtoo doorashadii u musuqmaasuqeen waxay gaarsiiyeen kursiga ugu sarreeya ee maanta ku fadhiisteen ayay gaarsiiyeen qodobka labaad ee aan lagu aqbalaynin doorashadaasi waxa weeyaan ka yeeli mayno in 7 xubnood oo golo komishina oo madaxweyne kulmiye ah iyo gudoomiye golo guurti oo kulmiye ah ay soo doorteen xisbigooda inaanu doorasho ku galno diyaar uma nihin mana yeelayno qof caqli wanaagsan iyo maskax bini'aadamina waxay yeelayso arrintaasi maaha sida awgeed waxaan gudoomiyaha aanu sheegaynaa inaanu diyaar u nahay mucaaradnimadii ugu adkay xukuumadda waxaanu diyaar ula nahay kulmiye inay kala kulmi doonto Yurub mucaaradnimo aysan weligood arag oo aysan weligood dhadhamin si ugu adkayd inay kala kulmi doonaan baanu diyaar ula nahay haddii aysan wax ka bedelin qaabka foosha xun ee ay ku wadaan hanaanka dimuqraadiyadda ee dalka booqashada uu gudoomiyuhu noogu yimid waanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku shubi doonaa xisbiga dib cusub waxaadna arki doontaa isbedelka ka bilaabma Yurub ayaad arki doontaa billahi kariim waraysi badan iyo waraysi darbe oo badan baa inoo dhiman intaasaan caawa ku soo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaheena oo mujaahid ah oo dalkii noo badbaadiyey waxaan kala soo dhaweynayaa marti sharafta iyo madaxda kale xisbiga ka socota xildhibaanada iyo xildhibaanada dee mustaqbalka dad badan oo sharaxan baa xagga laftooda fadhiya haddii aan usoo noqdo tii doorashadii naga qabsatay wayna ogeyn dad badan oo xisbigii wadani ahaa UK-na caawa ima muuqdaan waxaan malaynayaa kollay intaasu inay ahaayeen
dagaalka marka la galo qaar baa markay xabaddu dhacdo dib u carara dadna waxay dib bay u gurtaan waxaana dibgurasho xeer dagaal baanu samaynaa intan waa intii dibgurashada xeer dagaal samaystay soo noqotay insha allah aad iyo aad baan usoo dhaweynaa madaxweyne kollay midun baan dee dhagahaygu aanu rabnaa inaan wada maqallo in aynu ku adkaysano commissionkaasoo la kala diro mooye maca anigu lacagteeda xakmadda anu galay xildhibaannimada waan dhigayaa runtii waxaan u kacay unbe hamriyada iyo soo dhaweynta aan soo dhaweynayno maanta gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cali cabdilaahi caddo oo socodkiisii socdaalkiisii ugu horeeyey doorashada kadib soo dhawow gudoomiye gacmo furan qalbi furan kusoo dhaweynaynaa kolleyba hadal buu ma yaallo soo dhaweyntaas baa u kacay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa horta caawa waxaynu isugu nimi waa soo dhaweynta gudoomiyaha waan salaamayaa laakiin midun baan doonayaa inaan yar xuso waxaan xisbinimada la yidhaahdaa waa inagu cusub yahay innaga dalkanaynu joognaa handren buu soo jiray dimuqraatiga waxaad moodaa uun xisbinimadeennu inay tahay uun markan aynu doorashada madaxweynaha iyo doorashooyinku inaytahay laakiin xisbinimadu intaa way ka ballaadhan mas-uuliyad intaa ka weyn bayna saaran xisbinimaduna ma aha shiksi iyo reer ma ahee waa mabda aad ku midowdaan walaalkaaga isku dalka iyo isku dadka kiin mabaadii isku kiin keenta weye marka inaynu taa ogaano in hawl badani ina saaran tahay oo haddii ilaahay qadaray inaynu kursigii madaxweynaha aynan iman laakiin hawshii hawl ka muhiimsan ayna saaran tahay maanta aynu nahay xisbiga ugu weynee mucaaradka ah la doonayo baahidii aasaasiga ahayd sida waxbarashadii caafimaadkii biyihii mashaariicdii dalka la siinayey arrimahaasoo dhan inaynu si joogto ah uga hadalno waxaan la yaabaa maanta sida aynu nahay dimuqraadiga sidaynu dee waxaan odhan karaa dimuqraadigii dalkeenna waa la kursi baa ka dhacay haddaad aragto maanta aad daawato janankan b b c la yidhahda ama b b c baarlament doonta halkaa ka socota ee xisbiyada conservativeka iyo laborku ay isku hayaan oo ah dantii shacabka oo caafimaadkii laisku hayo oo cadaaladii laisku hayo oo waxbarashadii laisku hayo oo caruurtii child maintenancekii laisku hayo inagu waxaaba uma wajeednaba inooma bilaabnaba marka waxaynu u baahan nahay wakti bay qaadanaysaa inaynu xisbinimadu waxa ay tahay fahanno laakiin inaynu ogaano inaysan xisbinimadu ahayn kursiga madaxweyne loo tartamaya inaysan ahayn hawshu ay tahay mid mar walba taagan shaqo lagaa doonayo dhaqaale lagaa doonayo mambar lagaa doonayo inaad taa aamintaan khaasatan waxaan la hadlayaa taageerayaasha oo aysan noqon uun intan aynu doorashooyinka ku jirno uun carcararka uusan noqon ay noqoto mid walba in qofkii membershipkiina laga helo taageeradii xisbigiisana laga helo wixii dambe hadala kolley waxaynu u dhigan doonaa xagga dambe aynu u dhigan doonaa gudoomiyahana waa soo dhaweynaynaa idinkuna waa mahadsantihiin reer london iyo reer UK-na waa mahadsan yihiin ayar kaftamay dad baa magaca la magacayna raacina shay malaynaya ka magaca ku faala gudoomiye waxle kusoo dhawow london aniga horta xisbiga ilaa beriga ururka ahaa baan kugu soo dhaweeyey magaalada dila inankiina lagu dilay maalinta lagu soo dhaweynay dila maalintii runtu ahaa marka xisbiga diinka u daadisay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan halkan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha UK maxamed cali iyo gudoomiyaha London nagiib oo si wanaagsan usoo abaabulay xafladan iyo casho sharaftan oo rag hawlkar ah oo aan u qirayo inay yihiin lafdabarta xisbiga wadani UK iyo London anigu wax yar baa ka soo horreeyay gudoomiyaha
marka waxaan ahaa xeeladiyo oo gudoomiyihii baa soo socday ayaan lahaa inkastoo dad badan sarag laakiin adugu dad gaargaaray imika sida aynu u bilownay weligii ururka aynu kasoo adgeyno ayaynu maanta haddana u bilaabayna insha allah dee xukaasha ka hadlayo dimuqraadiyadda habkay u shaqeyso baarlamaanka ayaa u ah xudud waxaa jira xisbiga wadani in baarlamaankii hortu waa lagaga badanyay cid wal oo ama udub ahayd ama uxud ahayd waxay iska gashay kulmiy xukuumaddaa iska yaa iyo baawarka iska jiidata laakiin ma girif yeelin waxaan la marsiiyey iyo waxaan aad sheegaysaan iyo xeerarkana wax loo ceebo meesha ka dhaca xildhibaanada kulmiyaale sababto waa 2 konton wax alla waxay doonaan ayay marsiinayaan markay wax marsiyaan shaandadu waxa weeyaan madaxweynaha horta habka wada shaqeynta ee baarlamaanka ku shaqeeya waxa weeyaan waa check and balance marka anagu oo halku ka bilaabmo ayaa golaha wakiilada xeerarku gurtiday u tagaan gurtidu hadday soo celiso waxbay ka bedelaysaa khasab maaha waxay ka bedeleen in golaha wakiiladu uu sidoodii u raaco wuxuu doonuu ka bedelayaa laakiin shaandadu waa madaxweynuhu la taliyayaal sharci buu leeyahay madaxweynuhu waxay tahay inuu eego oo aanu saxiixin xeer ama diinta ka hor imanaya ama dhaqanka ka hor imanaya ama dastuurka ka hor imanaya saxiixidda madaxweynaha leh faafintana rasmigaana madaxweynaha leh marka wax alla wixii eeg horta halkaa ka yimaada haddaanu parliamentarian noo aragtaan annaga aan nagu qaadina weliba qolada anagu waxaan ugu nahay minority meesha wadani waxaa kaloo jirta doorasho haddii la qabanayo mas-uuliyadda waxaa iskale xukuumadda waa ogeedano doorashooyinkii dib u dhacay oo dhan 2010 markii ay ahayd in la qabto xukuumadda kulmiyaha qabsatay waxay yidhahdeen imarkaynu doorasho ka soo baxnay iyagaa dib u dhigay doorashooyinkooda cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo guddoomiyaha baarlamaanka ah bay berigaa marmarin jireen oo odhan jireen isagaa haysta baarlamaankii maantaba xaggay ku gaban doonaan berigaa waxa weeyaan guddoomiyuhu waxba isagu ma keeni karo guddoomiyuhu codka ayuu waa la tiriyaa xataa cod ma guddoomiye codku male waa la tiriyaa wax alla waxay baarlamaanka guddoomiyaan ayuu ku dhawaaqaa iminka doorashadan haddii la eego waxaa hortaagan xukuumadda qoladan ilyaas iyo baashaday hagbadaha u galeen waxaa hortaagan xukuumadda waxay ku hortaagan tahay 3 xeer oo aan isgeli karin oo kii doorashada iyo golaha wakiilada iyo golaha deegaanka kii dib loogu furayey aan isdhegaysanaada kii dib loogu furayey diiwaangelinta ay ahayd dadkii qaangaadhay in diiwaangelintii loo furo kii in saamigii la qaybsado oo uu markuu kulmiye muuse bixi guddoomiyaha kulmiyaha ahaa kii uu saxeexay 3 xisbi qarnidii oo saxeexeen madaxweynaha full powerka la siiya la yidhi adigu saamiga qaybi ee uu muuse ka mid ahaa markaa ayaa maanta taagan isagoo saamigii qaybin iyuudu wixiiba isku soo daray oo weliba yidhi xeer kastoo ha soo xuriyan komishanka xaaraanta ee boobay doorashadii u boobay kulmiye ayuu intu isku soo wada daruu yidhi soo xuriya commission xeer soo xuriya meel adduunyada laga arkay ma jirto commissionku ma laha xurinta ama xukuumadda soo xurisa dastuurka hadii la raaco ama golaha wakiilada ama 5 kun oo qof oo petition soo saxeexay ayaa golaha wakiilada kale habka loo soo xuriyo commissionkii baa soo xuriyay marka 3 xeer buu madaxa isu geliyey waxa weeyaan gartab ciduu bixi intuu wixii isku soo wada daray uu baarlamaanka u keenay waxa ka horeeya oo wada dhacmeedse u kala sareeyaan ayaa loo qaadaa dadku waxay u baahan yihiin in loo dhigo habka ay u wada shaqeeyaan labada gole ee xeer dejinta iyo golaha fulinta markay dadku fahmaan imanka anagu baarlamaanka dooska ka ay canaantaan anigu malayn maayo xisbiga wadani weliba xubnihiisa aan anigu ka mid ahay ee ugu firfircoon inaan lagu canaanaysaan inaanan qaylo yarayn oo aad og tihiin waxaa la yidhi raymond
ayaa wuxuu yidhi wallahi ninka aan usuhay ninka eedaamay waxbuu ogi intuu lacag siiyey buu yidhi mushaarkaa qaado muaadinkii iga daa eedaanka reema ninkii baa weliba kasii daray oo allahu akbarti markaasuu wallahi ninka aan usuhay waxbuu ogi qaylada aniga ragga lamid a intaanu qaylinaynay 7 ayna haysteen iyo sanadkanu kani haystay waa ogtihiin oo mar ramaanaan rag badan oo isdhiibay oo imika wasiirra isu dhigay oo wadani ahaana waa ogtihiin oo wasiirra isu dhigay anigu wasiirna kama rabno waxbana kama rabno xaqaanu ku eedaamina laakiin waxaanu idin leenahay dadka waa in la kala shaaneeyaa xisbigu waa inuu dibu habayn iyo kala hufid u maraa waa in DNA la qaadaa waa in xisbigu uu dib isu habayn sameeya idinkana waxaan leeyahay kalaar jabina waynu laba kaclaynana oo halka kacaanka laba kaclaynta markaynu sameeyno dad badan waxa loo baahan yahay wadankii waxa loo kala qaybiyay qabaayil xukuumadani doorashadii waxay keentay dadku inay kala qaybsamaan laakiin sida xukaasha sheegay xisbinimadu ma aha qabiil waa mabaadi aad aaminsantahay membershipkaaga haddaad bixiso xisbigaagana taageerto xisbiyahan baa tahay uma baahnida reebel noqoto marka waxaan leenahay reer wadani UK haddaa imika 2,000 oo taageero samaysaan xisbigu wuu guulaystay waxaana tihiin halkii hooyada u ahayd buddiga xisbiga wadani waxaa markaa ninkii xisbiga wadani taageersanaayo macallin nebiga markuu dhintay ninkii nebiga caabudi jirow nebi maxamed muu dhintay ninkii ilaahay caabudi jirow in allaha xayun wa baaq ilaahay wuu noolaya waanu jiraya waxa weeyaan doorashadaasi wayna dhaaftay madaxweynuhuna inkastoo anigu aan ahaa raggii aad u kulkulaa haddana guddoomiyuhu wuxuu sidaa uu sheegay jiif caaqil xasan burcad uu sheegay waynu wuxuu qaatay go-aankii ugu wanaagsanaa ee dalka lagu badbaadiyey buu qaatay oo waanan u soo noqonay intayadii aad u kululaydee lahayd no sababtu waa maxay dee maanta kumaynaan nabadda doorashada maynaan gallayn marka waxaynu leenahay war iska ilaaba ina yaroo baadariyo meel ka hadlay iyo nin kaloo yidhi muxuu ahayey halkana wixii anagu waxaynu ku doonaynaa doorasho iyo qalin commissionkaasina haba yaraatay inuu soo noqdo ha u fadhiina waxa weeyaan waxa odaha dhacmeed waxa weeyaan madaxweyne siinaayo markuu lahaa qaybi muuse shalay ahayd isagaa laga rabaa kubaddu garoonkiisay taallaa inuu horta saamo qaybsi karo dumarkan uu yidhi saami baa laydin siinayaana halkuu uga doonayo ee uu dastuurka ka gelinayo inuu dastuurkii furaad rabaa dastuurkii inuu furo ayaa la rabaa waxaanu qaban karin unbuu intuu isku soo wada duuba yidhi baarlamaanka wax ka qabto waxa weeyaan waa foor waxa weeyaan madaxweynahani handaraab weeye hoos dushuu iskaga handaraabay cid u gashaa ma jirto kuwii doortayba ayaa qaadu taagan رب العالمين وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maanaya da cabdiraxmaan xoog xoog ma harin xataa wiilka sanooxi oo raba musiiqan dibaa isle ma maalmo booxay 15 sano qayla baan ayaa waxaan marka hore marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiintan iyo taageerayaasha xisbiga ka soo qayb galay soo dhaweyntan guddoomiyaha aad iyo aad baa umahadsantihin dhammaantiin waxaan doonaya inaan kusoo dhaweeyo dalka UK guddoomiye cabdiraxmaan ciro iyo xogeeye qadar oo xoogaaya kasoo horreeyey iyo xildhibaan xoog oo isaga laftiisu xoogaa kasoo horreeyey inkastoo gurigiisii labaad tahay haddana maxaan ku dhaha haddana mar kale welcome waxaan doonayaa in yar inaan yaro saxo oo xildhibaanka iyo dhowr qof oo kale oo halkan ammaan ka soo jeediyey aniga ammaan iga soo jeediyey waxaan leeyahay anigu ammaantaa melig haddii waxaadan lahayn lagu siiyo dawa inaad iska soo celisaa wixii ama ha noqoto wixii soo dhaweyntii maanta ama ha noqoto
shaqada guud ee xisbiga ee UK ka socota waxa ammaantaa leh guddida ama ha noqoto guddida UK ama ha noqoto guddiyada laamaha iyo taageerayaasha xisbiga ee UK jooga laare anu waa la toostoosiyaa wixii ardayda halkii loo baahdo laakiin dadka shaqadaa qabtay ee shaqadaa lihi runtii ee ammaanta ku lihi oo dadkaa weeye dhammaan guddida oo dhan ama guddiyada laamaha ha noqdaan ama ha noqdaan guddida UK ha noqdaan ama garabka haweenka ha noqdaan ama garabka dhalinyarada ha noqdaan iyo guddida Yurub iyo guddiyada kale oo dhanba intaa kadib waxaan filayaa inaan dhowr horta ogeysiis oo yaryar baan doonaya inaan soo jeediyo 13 bisha oo sabtidan aynu joogno maanta sabtideeda kala ah haddii ilaahay ka dhigo waxaa dhici doona shirweyne weyn oo xisbiga oo dhan ah oo ka dhici doona London haddii ilaahay ka dhigo 7 fiidnimo West London West Ealing Diamond Hall haddii ilaahay ka dhigo shirkaas waxaan ka codsanayaa taageerayaasha xisbiga ee UK jooga dhammaan inay si mug iyo miisaan looga soo qayb galaan dhammaantood waxa kale oo iyana guddoomiyey maalinta isla maalinta lafteeda gudoomiyaha iyo xogeyaha iyo dhawaankuba dhammaan la kulmi doontaan dhammaan guddiyada UK oo dhan UK hadday noqoto iyo hadday noqoto guddiyada laamaha dhammaantood ayay maalinimadka la kulmi doontaan oo is arki doontaan insha allah haddii ay baydmo waxaa dhowr jeer runtii kolley laakiin fariimaha guddiyadaas idin kala hadli doonaan qaar badan waad sii maqashay imika oo iyo dadka taageerayaasha xisbiguba idin kala hadli doonaan qaar badan sii maqashay durugto hordhaceedii oo hoosta laga xaqiiqay in aan guddida doorashada horta cid aqbali doontaa aanay jirin haddii aydinaan qodobkaa si wanaagsan noola qaadaninna dee in aynu malaa inaynaan magaranaysaa aanaan aada isu soo dhaweyn doonin haddaa qodobkaas inuu yahay mid hoosta ka xaqiiqanta horta waynu islaa insha allah UK waxay ka mid tahay ama tahayba waddanka ugu weyn ugu taageerada badan xisbiga wadani qaaradda Yurub maadaama dadka ugu badani ay ku nool yihiin Somaliland ka soo jeeda ay ku nool yihiin UK xisbi ahaana xisbiga ugu taageerada weyn ee UK weeye gobol kasta oo UK allaan baa ka furan Londonna laamo badan baa ka furan طبعا marka doorasho laga soo baxo doorasho dhacdo sidii aad doonaysay waxa haday u dhici waayaan waxoogaa ma garanaysaa setback baa yimaado waxoogaa dib maaragtay dadku way maaragtay in yaroo ayaa timaada dabadeetana intaa yar oo waxoogaa seexashaa waa la yaro galay laakiin imika waa ka soo noqonay dardargelin badan oo la sameeyey guddiyadii oo dib loo dhisay iyadoo weli dhismihii socdo haddii ilaahay ka dhigo waa laga soo noqonayaa si wanaagsan baa hadda xisbigu isu abaabulayaa si wanaagsan buu abaabulan yahay dadku diyaar bay yihiin soo dhaweyntaadana adiga iyo xogayahaba waa laydin diyaar insha allah haddii abayno gobollada dalka kulle qaar baynu tegi doonaa oo aynu haddii ilaahay ka dhigo dahalkooda ugu tegi doonaa insha allah oo iyaguna ku sugaya inaad la kulantaan qaar xogayuun soo maray baa jira oo iyaguna doonaya inay guddoomiyahana arkaan haddii abayno waxaan unanayaa warbixino badan baynu kala qaadan doonaa oo aynu si gaargaara u kala qaadan arrinta kale wixii kale ee ku saabsan ee siyaasad iyo wax la halmaalana shirkeena guud baynu kala udhiganaynaa waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawow guddoomiye iyo xoogayaba dalka UK waa mahadsantihiin asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة أنا غير UK ما هو غير UK ما حنود الشغل إني نسول ويجي. أنا سنة. والله دي عد حل بالك الأسواق ما نسول ستيشن. ميكروفون قالوا بعنين waxa aan doonayna runtii laba kalmadood oo yar yar oo ka dhaahdo in
shirkeena soo socda haddii la yiraahdo insha Allah sabtida shirarka marka la qabanayo guud ahaan waa muraayada wuxuu ka noqdaa maxaan ku raahdaa uu muraayad u yahay sida aynu haddaynu dalka qabsano u maamuli doono haddii la yiraahdo insha Allah haddaynu shir si fiican oo qurux badan u maamuli weyno wadana si fiican oo qurux badan u maamuli karayno galabta markii aynu isu nimid aynu gudoomiyaha soo dhaweynaynay waxa xasuustaa sheekh baa Mr. Jaamaca Hargeysa tukin jiray 39 oo sheekh aad loo jecel yahay buu ahaa oo aad u khudbad wanaagsan marka salaada ma aragtay marka la tukanayo waxa la dhaahdaa sheekhu iska ugu dhaahdaa qof walba wuxuu dhaahdaa istoobu qof walba dhaahdaa isaga inta hore u soo baxay dhaahdaa dadkii doonay inuu hagaajiyo marka waxa sheekh safkii uu toosayninba isaga inay istawda hayo barigii dambe uu bedelo wuxuu odhan jiray nin walba aadii sagaaji buu odhan jiray yani adigu iska daa dadka kale adigu isagaajiyo safka galo safka toosi buu odhan jiray shirkeena haddii la yiraahdo insha Allah guddida waxa maamuli doonta guddida UK ayaa maamuli doonta iyaga ayaa cid u xil saari doona markaas uu shir qurux badan inoogu dhaco inaynu si fiican uga soo qayb galo cidda maamulaysa haddii la yiraahdo insha Allah nidaamkiisa iyo quruxdiisa iyo wixii si inoogu wanaagsanaado aynaan kulligeen haddii la yiraahdo insha Allah wada maamulin taasi waa iga dardaaran iyo shirkeena inoo soo socda insha Allah anigu imika waxaan joogo gudoomiyaha ka soo horeeyay bil meelahaas ka soo horeeyay dad fara badan oo reer UK baan intii aan joogay aan saragnay oo aanu sheekaysanay Sheffield iyo Bristol iyo oo aan deganahay iyo Birminghamba dadkan soo arkay xaqiiqatan waxaan ku soo arkay energy cusub iyo deeg cusub iyo inay diyaar u yihiin dib u dhalashada xisbiga iyo inay diyaar u yihiin inay la jaan qaadaan nidaamka cusub iyo dib u curashada xisbiga haddii la yiraahdo insha Allah waxa kale oo ku soo arkay dadkaasi inay dood adag qabaan inay diyaar u yihiin inay doonayaan gudoomiyaha inay dood adag la galaan waxaan idin leeyahay gudoomiyihii yimid ayaa la dhoomana doodii waa u diyaar doodii qof walba insha Allah haddii la yiraahdo waa inuu soo diyaarsado intuu joogo gudoomiyuhu haddii la yiraahdo insha Allah marka laga yimaado shirka guud ee weyn ee sabtida dhacaya wuxuu diyaar u yahay inuu taageerayaashii gaadho xisbiga inuu gaargaar la kulmo inuu koox la kulmo inuu group la kulmo habeen la kulmo maalin la kulmo idinku halkan idin jooga haddii la yiraahdo insha Allah waa ina maximize garaysaan la doodaan talada nasiisaan dhaliin wixii ogtihiin noo sheegtaan deetaynaga wada soconno isla jaan qaadayna oo maxaa la odhan jiray jiibkiyo jaanta isla helay haddii la yiraahdo wadankii ku noqon aad iyo aad dunia ku soo dhaweynaya bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mar labaad oo ku faraxsanahay inaynu isugu nimi diyaafada weyn oo martiqaadka weyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha iyo madaxda xisbigaba ee ka kala yimi gaar ahaan gobollada fogfog iyo laamaha kale dibadda ka baxsan London oo safarka dheer soo galay after min bay noo hadhay oo kulliba hadalku inoo dambayn doonaa intiisa ugu muhiimsanin laakiin safarkaygu wuxuu daaran yahay kow waxaa ka warqabtay doorashadii kadib dee gobolladaas soo maray oo waa usoo mahadnaqnay dadkiina taageeray beriga wadaan imi Yurubna ima suurtagelin halkan imaado safarkayga Yuruga koobnaa ee Ramadaan fiican oo mahadnaq usoo mahadnaqo intii aan gaari karay marka ujeedada koowaad waxay ahayd inkastoo la raagnay inaan usoo mahadnaqo dhammaan taageerayaasha iyo laamaha xisbiga ee dalka UK iyo dalalka kale intii ku harsanba haddii ilaahay ka dhigo laba inaynu sidii isu wareysano sida hogayuu sheegay kulankaa weyn marka laga yimaado waxaanu diyaar u nahay
wixii talooyina iyadoo kamarooyin nala joogo inaynu doonno sidaa xoreyu sheegay wada hadallo si saraaxada ku jirto xisbigu runtii qiimayn buu sameeyey doorashadii iyo sababtii laga yaabo dad badan isweydiiyaan aynu kursiga ugu fadhiisanayno qiimayn badan baa la sameeyey iyadoo qoraalana waa la hayaa oo idla sheergarayn doonaa insha allahu idinkuna in baa ogti in badan idinka mid yihin waddanka waa timaadeen bawjoog baa hayay waanu ka xunnahay runtii waan ka raaligelinaya dad badan oo dee hawl badan soo galay oo waddankii iyo shaqooyinka u yimaadeen aanay suurtagelin loogi aad baan uga raaligelinayaa waxay ka mid ahayd in waayo aragnimadii aynu soo aragnay xisbi curdina waa xisbigii doorashadii ugu weyneed ugu muhiimsanayd baynu gallay halkan waxaan qabaa inaynu guulaysanay kursigii laakiin kuma fadhido wadamadan da yurub waa ka waraysaan oo xisbiga 40% ka badan helaa waa xisbi weyn oo bayartahay dee inta badan 40% xisbi gaadha yurub aan markaa awoodda qabsanin u leeyahay waa intii nairobi garayntaas intii naga maqan lagu darana iska guusha waynu iska lahayn laakiin waxaa iga muuqda runtii waadii ii dhiirigeliyey kulankan caawa iyo soo dhaweyntiinaba inay dardar fiican ka muuqato dardar cusubi ka muuqato inaad diyaar u tihiin hawl tii hore ka adag ayaa soo dhaweyntiina iyo kulankiina caawa ay muujinayaan waxaana filayaa in dhammaan dee laamaha kalena sidaa halkan uga muujiseen firfircoonida iyo diyaargarowga cusub iyo dhiigga cusub sheegii hogayuhu ee uu soo arkay uu idinka muuqda intuba waxaan keenayaa inaynu hawl kii ka weyn qabanno waxyaaba badan oo xisbigu de reformka sameynaya waxaa ka mid ah in aynu si daba u diiwaangelino taageerayaasheeda ama dibadda ha joogaan ama gudaha joogaan waxaa ka mid ah inaynu transparency ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid shaqo ha noqoto aynu samayno accountability ay jirto waxaynu doonaynaa in ownershipka xisbiga la wada yeesho oo qof waliba uu wax ku darsado ma suurtoobi doonto mar dambe qofkii xisbiga u shaqeeyey ee dadaalay iyo qofkaan u shaqeyn inay isku noqdaan qof walba waa la qiimeyn doonaa mid gudaha jooga iyo mid dibadda jooga haddii ilaahay ka dhigo waynu xisaabtami doonaa waxaanu diyaar u nahay inaan la xisaabtamo hadda ilaahay ka dhigo aada iyo aad baa umahadsan tihiin wixii inoo harsan kulmada dambe ku dhamaysan doonaa aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وقلك دايا وقابر يا وقلك دايا كوعقبا كرايا ووطني وقابر يا وقلك دايا وقابر يا وقلك دايا كوعقبا كرايا ووطني